aniga soo caan bixisuu raadinaa wuxuu maxaan ku dhahay mar walba anoo kaamarada wato oo asaga iga hadalka iga hormaraa uu hor ordi jire waxaas camal waa ceeb hadda inaad ka dartaa waxaa dhahday gabdhahaygu uu maxaan ku dhahay waxyaalo xun iyo waxyaalaha hadda waxaan afkayga soo marayna oo disgustina u daari jire u daarayay gabdhuhu iga kufsan gaaray markaan hadda maxaan ku dhahay Nairobi imaaday naa intaasuu qaxootigu kula jooga uu gurigaaga jooga muxuu u sameyn waay waxyaalahaas qaladka ah haddii ay ka suurta gasho haday ka suurtooda muxuu u sameyn waay waxyaalahaas xun iyo waxa disgustingka ah marka walaalay maxaan ku dhahay istaray in la kala xishoodo way fiican tahay wiilka miskiinka ah oo maxaan ku dhahay abaalkiisa maanta aad ku gudday maxaan ku dhahay caan raadis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاليه قدمانتين وايد السلامة هلكا ايقا داونيسان waa janaalkayga umu samir official please janaalkayga daa ku cusubtahay subscribe like comment inta beesha insha Allah ta'ala maanta gaariga ayaan saaranahay maxaan ku dhahay camera ku duubay mobilkayga ayaan ku duubaya insha Allah ta'ala isla socod wanaagsan walaalahayga qaaliga maanta waxa fiidiyogan isugu gali horta wax aan maxaan ku dhahay aan dhageysan waayay waxaan halkan waano iyo maxaan ku dhahay aan ka waanaya halkan oo maxaan ku dhahay gabadha walaashay ee la dhahay Esther Korlibaax abaay macaanto waa inaad kala xishootan adiga wiilkaas Esther ay runta waa lama huraan abaay runta waa lama huraan wiilkaas waa wiilka shalayta ku gacan qabtay YouTube-kaada asiga ma ogi qof kaleeto oo wax ku duway ma jirin abaay macaanto runta waa lama huraan been in la isku sheego ma fiicna Esther Korlibaax wiilkaas waa wiil ku soo gacan qabtay waa wiil maxaan ku dhahay video kula duub waa wiil wax walba kula sameeyna war wax walba adiga iyo xaamile ah war wiilka maxaad oga oosiin Esther Korlibaax waxaan camal ceeb waay hadana midda koowaad horta ku sheegay waxa waay horta haddii maxaan ku dhahay la kala tago oo la isku dhaco mise wax la isku qabsada soo ma fiicnaan lahayn in la kala aamuso nin walba duurkiisa gala soo kama fiicno maxaa nin walba ninka kale wuxuu u qabtay iyo nin walba wuxuu u sameeyay oo soo hadlaa waxaas camal ceeb waay war sida Muniir iyo Liicaata noqda Muniir iyo Liicaata laba wiil waxay ahaayeen ceesho milix oo maxaan ku dhahay walaale oo inay walaale yihiin ma ogi inay saaxiibiin xataa loo maleynaynin war way isku dhaceen hal mar maxaan ku dhahay qaleef dhexdooda soo galay nin walba danihiisu raacday nin ku mashquul ma jirto intuu soo fadhiistay dhahay ma jirto Liicaata waxana u sameyn jiray Muniir intuu meesha fadhiis ma dhihin Liicaata waxana u sameyn jiray Liicaata anaa soo hor qabtay Liicaata anaa soo gacan qabtay aniga soo caan bixiyay Liicaata intuu soo fadhiistay ma dhihin Muniir anaa soo caan bixiyay Muniir anaa soo u qabtay balse adii hadda wiilka oo shalayta wax kula duubay oo ku soo garab qabtay oo xataa istaalka markaa ku jirto ku soo booqanay oo xataa umasha markaa ahayd ku garab qabanay oo xataa dukaankaaga markaa gadayso xataa video ku duubay oo wax walba ku sameynay maanta inta dhahda ma ahayn caan raadisu raadinay aniga ina caan bixiyo buu rabay ani inuu caan iga dhigo ina caan ka dhigo baan rabay shilina kuma shaqeynaynin bal wiilka inta wax kugu shaqeynay hadduu caan bixis raadinay mis inuu caan noqdo uu raadinay oo shilina lacag uu ka qaadanayno oo waxna aad siin jirin maxaa haddaad caan bixinaysa oo hadda bunch inta soo fadhiista aad leedahay ceebtaada wiil inta ku shaqeynaayo oo inta wax kula dubay session u siinaysa saa wax u siinaynin oo wax la'aan aad dhigi karta oo haddana qaxootiga jooga hadda meesh inta soo fadhiisata waxaad leedahay maxaan ku dhahay aniga soo caan bixisuu raadinaa wuxuu maxaan ku dhahay mar walba anoo kaamarada wato oo asaga iga hadalka iga hormaraa uu hor ordi jire waxaas camal waa ceeb hadda inaad ka dartaa waxaa dhahday gabdhahaygu maxaan ku dhahay waxyaalo xun iyo waxyaalaha hadda waxaan afkayga soo marayna oo disgustina u daari jire u daarayay gabdhuhu iga kufsan gaaray markaan hadda maxaan ku dhahay Nairobi imaaday naa intaasuu qaxootigu kula jooga uu gurigaaga jooga muxuu u sameyn waay waxyaalahaas qaladka ah haddii ay ka suurta gasho haday ka suurtooda muxuu u sameyn waay waxyaalahaas xun iyo waxa disgustingka ah marka walaalay maxaan ku dhahay istaray in la kala xishoodo way fiican tahay wiilka miskiinka ah oo maxaan ku dhahay abaalkiisa maanta aad ku gudday maxaan ku dhahay caan raadis raadinay ina caan oo aan ka dhigo buu rabay kaamarad ana wax ii duubi dhihin buu hor ordi jiray waa wax laga fiican horta aad looga fiican yahay ma fahanteen haddii maxaan ku dhahay isfahmi waay inay banaanka la kala maro oo nin walba danihiisa raacsada ayaa fiican ma weyn inta meel soo fadhiisto kan ana saan u sameey kan ana saan caan ka dhigo raadinay dadkan wax ii duubay nin caan bay raadinayaan ceeb bay waxaas ceeb way wiilka shalay war wuxuu dhahay wiilkaas markuu soo hadlay aad uu ooynay markuu aad ooga qiirooday war isbitaalka inta oogu tago wuxuu dhahay maryaheeda aniga dhaqi jiruuday maryaheeda oo umusha yaan ka meeri jiruuday aan ka hoos qaadi jiruuday qofka inta ku sameeyay oo abaalkaaga inta ku guday na midka wax ku qabay oo kala tagteen oo ku qabi jiray maxaan ku dhahay intuu meel soo fadhiistay xataa
xataa intuu meel soo fadhiista aan kaamara iyo waxba aan kuu duubi jirin uu aamusnaan jiray youtube-kaaga midda koowaada lagu daawan jiray oo kuu kala kicin jiray oo youtube-kaaga dadka soo jiidan jiray qadar uu ahaa wallaahi qadar uu ahaa because ninkaas aamusan oo intii maxaan ku dhahaaye sana meela dhiga aad mood inuu iska taagi yamta un ku jiro intuu iska taagi samta un ku jiro oo maxaan ku dhahaaye waxba kuu duubeen hadlayna xataa markaa wax samaynaysa xataa hadalba aan kasoo bixaynin wixii wax kuu duubi jiray oo youtube-kaaga jimcaha markaad wax karinaysid maanta maalinteena jimcada way dhihi jiray qadar uu ahaa wixii youtube-kaada kuu kala wada abaa macaanto yaa youtube-kaaga ani waan ku xirnaa waa daawan jiray yaa wiilkaasuu u shactirayna darteedaan u daawan jiray youtube-kaaga yaa mohaagana hadda aad isku dabanabaysid oo leedahay aad asiga dartiis guriga ooga saartay wiilkaas yaa waa kii maxaan ku dhahaay hadda koor ku caayo oo kugu caayo cajuusa ee habarta oo kugu caayo waay mohaaga hadda u doodays waa kii hadda koor ku caayo oo cajuusay habarta ee ku dhahe haddana ma fiicneen aan ku dhahe wiilkii maxaan ku dhahe ilmahaaga kula soo garab qabtay oo qaxootiga rafaadka intaad umulaysa intaad xaamilada ahayd yaa youtube-kaaga ku garab taagnaa inaad maanta maxaan ku dhaha dhahda caanbixisuu raadinaaye inaa casoo caanbixiyo uu rabay wallaahi bilaa abaalkiisaad halkaas dhigtay ma fahantay asigana qadar waxaan inta firin ooga diraya aboowa macaana hala ficiltamin ma fahantay maxaan ku dhahay ka roonaaw aboowa ka roonaaw ma fahantay youtube-kaaga adiga fura adiga meel iska soo bixi dadkaba marka maxaan ku dhahay tiktok kasoo muuqan jirta waxay ku dhihi jireen war adiga tiktok ma lihid miya tiktok maa furitad ay ku dhihi jireen dadka ma fahantay laakiin waan dareemaa inaa keeda u duubaysa oo inaa mid kale furatay aadan rabin dadka waxaa waay dadkay ku shaqaystaan ma ogi dadka maxaan ku dhahay qofka kuu shaqaynaa mise wax kula sameynaa asiga inaa wax u furtid waa wax wanaagsan marka aboow macaana waxaan ku leeyahay video dambe ha soo duubin ka roonaaw wax video usoo duubta ayay jirin mar dambana maxaan ku dhahaye ha usoo jawaabin hana soo aflagaadaynin ma fahanto waa qof weyn oo maxaan ku dhahaye oo hooyo ah oo caruur haysata oo awlaad haysata oo wiilka dhalinyarada haysato oo haddana wiilal yaryariis ah oo wiilkeeda la eg yaa isku dabananabaysa oo maxaan ku dhahay midba mid soo kaxaysanaysa waa wax laga fiicay ma fahantay abooha maxaan ku dhahay ha ku daba xiranin hana usoo jawaabin you have to inaa ka roonaato isku day aana usoo jawaabin mar dambe istarna sooma ahan horta waxay samaysay way samaysay qof abaal kuu gudo yaa qof abaal kuu sameey qof abaal loo sameey abaal guda la waaya la dhimay dhah Soomaalina mahmaad aad ma u garanaayay ma fahantay marka walaalkay macaan waxaan ku leeyahay hormar wacan hore u soco TikTok-gaaga live-kaaga waa ku xiranahay waa daawdaa soo xafaanta ma aha keep going aan ku leeyahay hormar wacan aan ku rajeynayaa istarna horta ceebtii ahayd ay dhex fadhidaa ceebtii ahayd ana horta waxaan xaqiijinayaa oo marqaati ka ah istar inaa youtube-keeda u duubi jirtay oo adiga aan soo gacan qabatay oo youtube-keeda adiga ma ogi qofka si fiican u hadlaayo oo meesha shidaaya oo la daawanayo xataa inaa adiga tahay taas dadka dhanaan marqaati kugu faray kara waxa la iska dhadhahay ma jirtaan ku dhahe ma fahantay abaawo macaane abaay macaanta aboowo macaane labadiina waxaa ila leeyahay ka kaftoomo waxaan qof hadduu qof wax u qabtay haddii la isku shalay haddaa laba qof saaxiibo aheedeen oo wax isla duubayseen haddii maxaan ku dhaha la isku dhace waxaa fiican kana danihiisa inuu raacdo kana danihiisa raacdo kan intuu maxaan ku dhahaaye wuxuu xiran jir uu sheegay kan wuxuu samayn jir inuu sheegay kan anaa soo caanbici qofka maanta waxa ay siin jirta haddii intaa meel soo fadhiista aad dhahday kan anaa waxaa siin jira soo ceeb ma ahan kan anaa saa u samayn jira waxaas ceeb waaye qofkan intaa hadhow isku soo laaban doontiin war ma ka haysiin intaa hadhow maxaan ku dhahay sidiina hor isku noqon doontiin war kama haysiin marka qof walba qofku wuxuu u qabtay inuu sheego waa ceeb maxaan ku dhahay asxaan hadda ilaahay agtiisana waxba kuma ku yaalaanba abaalka awal u gudanay abaalka awal horaan u sameysay adiga dadka dhan banaanka ugu sheegtay oo meelaha dhigtay marka insha Allah taala walaalahayga qaaliga waxaan in leeyahay adinkana khayr badan ay rajeynaa wallahi ciil dartiis oo maxaan ku dhahay video wiilkaas oo inay aan arkay maxaan ku dhahay soo gariya live kan insha Allah taala khayr badan ay rajeynaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaantiinaba